magacayga waxaa la yidhahdaa Malaaq Khaliif Maxamed Axmed oo malaagyada Digil iyo Mirafle ee gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal. Waxaan rabaa inaan ka hadlo oo halkaan u imid arrin xanuun leh oo aanu ka harsan weynay oo saaka ilaa iyo xalay na soo gaaraysay meeshii hadda ay maraysaan hadda meeshii ugu xumeedna hadda marayso oo ka dhacday degmada Laascaanood. xanuunkeedii baa la seexan weynay waa la harsan weynay waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa Laascaanood ku ganacsanayay ka shaqaysanayay 20kii sano hadda la soo dhaafay deganaa dhibaatada loo geystay hantidoodii la dhacay iyaguna la xirxiray oo ilaa xalay ilaa saaka la aruurinayay haddana Laascaanood laga soo qaaday aysan Puntlandna soo gaarin raad iyo jaan meel ay dhigeen haddeer warkooda aan hayn dhibaatadoodii iyo xanuunkoodii iyo ehelka iyaga weeye odayaashoodii baan nahay baan la harsan weynay arrinkaasaan u imaanay inaan saxaafadda ka hadalno ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba aan ogeysino waxaan la hadlaynaa ummadda Soomaaliyeed islaamka ah gaar ahaan Somaliland hadda siyaasadda iyo shacabka Soomaali sideeda maamul goboleed iyo ilaahay ku roon yahay dawlado badan bay leedahay laakiin shacabka meel walba waa lagu nabadgeliyaa gobolada Soomaaliya meel kasto ay seedaan shacabka Soomaali waa lagu nabadgeliyaa dalka nabadgeliya u joogeen waa ka shaqaysanayeen anshuur bixiyaal bay ahaayeen dad islaam ah Soomaaliyeed oo shacab ah dalkooda ka shaqaystay ahaayeen hadda dhibaatada maanta loo geystay oo hantidoodina inta lagala haray iyagayna gawaari lagu soo guray oo hadda meel la geeyay ay ku sugan yihiin ma sheegi karno kuwa duurka nagala soo hadlayo telefoon naga soo way jiraan meel tukura u dhow baanu gawaaridii ka leexdeeno hoodkaasa maraynabe warkooda inoogu dambeeyay dawladda Soomaaliland u sareeyo Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa shacabka ee Digil iyo Mirafle ee ku dhagan gobolada Soomaaliland ku nool oo ku ganacsanayo inay nabadgeliyaan haddii la noolaashadooda iyo deganaantoodii ay dhibsadeen inay nabadgelyo siiyaan naftooda iyo maalkooda soo nabadgeliyaan oo si nabadgelyo ay isu soo dhaafiyaan dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa dadka la soo dhibaateeyay oo hadda aanu meel ku ogeyn shacabka iyo dawladaba dadkaasi meesha ku aragtaan ama duurka hadii lagu daadiyay iyo meeshii lagu arko dad ilaa shalay afduubanaa aan waxba cunin xirxirnaa gaajo iyo haraad iyo dhibaato ma aragtay intaaba hayso weeye aruur baa ku jirta sidana loo sheegay dumaraa ku jira dad islaam ah Soomaali ah saa isu galay anagu hadda maanta ka hor ma arag iyaguna waxaan ka codsanaynaa dadka meeshii lagu arko in noloshooda iyo ilaahay ku roon yahay la soo badbaadiyo oo ilaahay ku roon yahay Soomaalinimo iyo islaamnimo loo badbaadiyo dukaamadooda waa xiran yihiin dukaamadooda iyagoo xiran baa naftoodii la soo qaaday hantidoodii meeshii bay taala dukaamadooda waa xiran yihiin nimankii nala soo hadlay waxay noo sheegeen inay dukaamadooda loogu yimid dukaamadii xiran yihiin bay noo sheegeen hadda furiyaashi wallahi ma sheegi karno ma aan weydiin kulay idii iyagu soo xirtay baa haysata anuu hadda furiyaashi guri ninkii lahaa la soo xiray furi looma baahna waa la iska jabsanaya waa waxa anugu hadda maanta ma arag Soomaaliya dhaxdeeda kuma arag hadda 91 dagaaladii markay dhaceen hadda Soomaaliya isleenaysay burburka dhacay dad sidaas oo kale la dhacay oo la dilay way jiraan laakiin dad Soomaaliyeed meel nabad ka jirto lagu shaqaysanayo Soomaaliya oo nabad u degan tahay in dad midabta koor lagu sameeyo oo la faquugo oo hantidoodina la dhaw iyagana la afduubo waa wax Soomaalida dhaxdeeda ubuka weeye waa wax aan waliga aan ku aragnay maahan haddeerna waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland madaxweynaha u sareeyo Muuse Biixi ismada salaadiinta iyo waxgaradka ulmaaudiinka waxaan u sheegaynaa dadkaasi inay nabadgelyo soo siiyaan ay soo dhaafiyaan hantidooda iyo naftooda ay nabadgelyo siiyaan dadka Soomaaliyeed isteedin la hayna mala isteedkaasi jar eebna ma dhibna ma laakiin inaan dadka shacabka la gumeysado oo la dhibaateeyo oo maartay la raafo hantidooda iyo dhiigooda lagu banaaysto ma ahayn marka may laha dadka walaalada ee muslimiinta
oo isteedka Somaliland haddii mayba maamul ahaada lahay haddii oday ahaada lahay haddii ulama udiin ahaada lahay maylaha walku sii faylay sharafti geeka madi hor madi sameeytan roonaytay laakiin geeka sharaftiisan samee walaysan geeka sameeytan sharaf dhaw maamulkan mangrong Soomaalinimada mangrong dadnimadiisin hordhaan qabtaan geek wala daarsan maylaha dadka walaalada Somaliland lay dhibaato iyo marna dadka walaalada oo injeeysadeen tomarna hataa liska tuu doono masahayna tolnimada isku kuraadi doono Soomaalinimada isku kuraadi doono midna ma oo ballanku waa toonaan mayba Soomaali mashal dheerayta waxyaalahaas hore lunku gudubi maamulna waa maamul way qabiilna qabiil way laakiin maamul in waxyaalaha gaar mayba ka kaho qabiil ahaan ka kaha walku sii faylay lan illa mu wala hadlaayo koran wala dhibaatay karan laakiin in bulshooyin Soomaalina sheegadaas in ka tomay badad shacab iyo hoos noolan oo in raafan oo hantidoodan binaysadaan reer yaal joon mayba ilaa mayba on loo en ruran antaas ma aragay nasiib dore araga Soomaalinimada in haynan waa dareemahay Soomaalinimada mayba haytay sinooyin kun dambe tuugnimo jar korta shakhsi ay jar korta lan wal dhac kor wal dhaawac kor wal dil kor laakiin in bulshooyin dhown koo mayba dabada ku maro hantideeda marna lagu tabo dadkii la raafin mayba tuugnimo mayba doortalanka wado oo wadooyinkan la talo ku biro jaftalan mariyo marna may ngaraga hin qatalaad mayba usbaan ngaraga shakhsi la qatala jar ma bulshooyin dhown mal qatala jar tanto usbano mayba Soomaali dhown ku usbaan ilaa tasan malayo dadka hata weelena mayba kulli la weelbu wali isu sameeyay mayba mukumogun maana mayba malan lu gebado maana malan qareydon Somaliland hoob siyaasadda mayba meeli ku bilaawtay mayba raaf nagati walku sii fayleegab waan walku sharaf badani magacayga waxa la yiraahdaa Nabadoon Aadan Xasan Cali oo ku dhaqan gobolka Nugaal gaar ahaan caasimada maamul goboleedka Puntland waxaan u imaanay maanta xafiiskan raadiyo Garowe aan u soo booqanay arrin aan la xanuunsanay oo la fajacnay oo nagaga timid xagga dhinacan Somaliland magaalada Laascaanood dadkii Soomaaliyeed oo joogay oo ku ganacsanayay oo deganaa oo reerahoodii iyo hantadoodii taalay ba ilaa iyo shalay iyo xalay ilaa maanta la aruurinayay oo inta meel la sugu geeyay oo dukaamadooda laga soo kaxeeyay oo reer guryahooda looga dhacay la soo kaxeeyay inta hadana 12 baawur lagu soo guray oo la soo qaaday oo ilaa iyo hadda meel la geeyay meel loo qaaday aan lahayn baana loo sheegayaa arrinkaasi aad iyo aad baan ugu xunnahay taliyaha booliiska gobolka Sool oo uu dhahay dadka Soomaali ma aha ajaanib weeye waxaasi waa war ma aha war taliya ku hadlana ma aha war taliyahaasi waxaan leeyahay xidiga la siiyay xidiga uu wato wax jira ma aha waayo in la siiyana ma mudnaynba hadalkiisi uma fiirsan hadal uusan u fiirsan oo ku degdegay buu ku hadlay baan leeyahay waxa kale oo halkan baa ugu diraya ummadda koonfur galbeed ka soo jeeda oo ku dhaqan Somaliland si dhaqsayn iskaga soo baxan sababtoo ah waa markii saddexaad iyo markii labaad way oo Somaliland oo ay soo daaburayso soo gulaysa waa markii saddexaad waxaan leeyahay iskaga soo baxa Somaliland waxa uu sheegay inay dawladeedii inay dadkaada si amaan geliyaan si nabadgeliyo ah hantadoodii naftoodii ay u badbaadiyaan ayagu hadday Soomaali u hayaan aniga ay Soomaali noo yihiin anigu hadda waxaan joognaa Puntland baan joognaa nabad baan ku qabnaa Soomaali Laascaanood markay Puntland joogtay dadka laguma dhibaateen jirin lamana dhici jirin lamana soo rari jirin idinku inaan Soomaali ahayn maanta idin ogaanay awalkii waxaan idin qabnay inaad Soomaali tihiin laakiin maanta inaad idinku Soomaali ahaan baa noo sheegteen Soomaalinimaduna sidaa ma aha marka waxaan idin leeyahay dadka iska badbaadiya naftooda iyo dhiigoodii iyo maalkoodana soo badbaadiya